farmaajo waa saaxiibkay haddaan wada hadlayna intaan aad kuu soo gelin marka waana leeyahay inuu yahay meeshaan ninka ku habboon hadda yimid waana wada shaqaynaynaa aniga wada shaqayn dhab ah oo wanaagsan oo saaxiibtinimo oo dhow ayaan la yeelanaynaa dowladdaas hadda ayaga dhanka wax kala ka imaan laakiin mana rajaynayo waan la shaqaynaynaa madaxweynaha waxa uu ka hadlay waxa uu la kulmay Sacuudiga waxa uu kala hadlay arrinta dekada Berbera oo arrin aad Soomaali oo dhan u hadal haysta xarun ciidan oo Imaaraadku rabo inuu Berbera ka samaysto waxaan ognahay dekada Boosaaso in Imaaraadku uu rabo inuu idin horumariyo hadda ka hor xitaa balaarinteeda ka hadasheen ma jiraan wax xarumo ciidan oo Imaaraadku idin la hadlay in Puntland ka samaysta dowladda Imaaraadka ahi waxay naga taageertaa tababarka iyo ciidankan badda PMBF-ta wax qarsoonna ma laakiin saldhig military oo Imaaraad leeyahay oo Puntland ka jira ama nagala hadlay ama aanu hadda ka bacdi aanu rajaynayna ma u jiro madaxweyne maxay tahay waxaan soo noqnoqda ee mar walba mushaar baa la bixiyay iyo lama bixin horta dowladda Puntland Cabdiwali dowlad dadka u dhibreeyay wasaawiye u naxariisata oo aan shida badnayn askar hadda si niman saraakiil hadda siyaasiyiin iska noqdana waa jiraan oo hadda aan ahayn sarkaalnimo dhaqanka sarkaalnimo aan lahayn hadda dhaqan siyaasi yeeshay laakiin wasaaradda maaliyadda waa ka hadashay ciidanka hadda aad ka hadlayseen oo shidada suubiyey walaalkay horta waxa weeye abaarta ilaah baa keena ilaah baa naga saari kara ilaah baan u baryaynaa ummadda Soomaaliyeed markasta joogaanba inuu abaarta naga dulqaado laakiin de wax kale oo hadda oran karnaa ma jirto waa dadaalo lacagtii musharaxiinta laga qaaday Puntland qayb baa ku soo artay idin soo gaarsiiyeen mada wax lacag oo soo gaartay anahay 150 kun oo musharaxiinta laga qaaday ma garanay lacagtaas anaga kule waxaan soo gaaraan ku iri 150 kun oo dowladda ku faraad naga soo gaartay waxa baarta ku saabsan 150 kun soo gaartay wax kale naga soo gaaray ma jiraan arrinta amniga bari maxaa kaaga soo baxay inta jirtay inta ku sheegay magaaladan hadda dhowr hadda labo usbuuc ka badan hadda ku nagaanay oo degan joogaa muhiimadda ay noolahay weeye Boosaaso magaalo muhiim weeye caasimadda ganacsiga Puntland weeye waana gobolka oo dhan basiisa ma aha kaliya taas lama micnaha inaad rabtid inaad waqtiga oo dhan halka joogtiin taa kaaga hartay waa inaad shaqadan qabatid kadib shaqada wadid dabcan horta magaaladani waa magaalo muhiim ah taan joogo xataa marka qaarkood wadanku garow kaliya ma ahan meel kale badan baa la tagayaa dalka oo lagu shaqeynayaayo madaxweynuhu tagayaayo ayaan joogayaayo waxa weeye dabcan dowladnimada ka mid tahay in la socdo oo dadka laga warqabo